diiwaangelinta wasaaradda qorsheynta Soomaaliland wado ayaa waxay maalintii lixaad si habsame ah uga socotaa gudaha iyo gobolada degmada Ceerigaabo waxaana isuduwaha wasaaradda qorsheynta gobolka Sanaag Faysal Cabdikariin xifsi kormeer ku tagay intooda badan deegaanada miyiga ee hawshan ka socoto oo gaarsiiyay agabka adeegan u fududeynaya iyo waliba gudaha Ceerigaabo waxaana qaar ka mid ah dadweynaha lagula kulmay goobaha diiwaangelintan ka socoto ay ka xog warrameen sida ay u arkaan hawshan annagana baahideeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka wayna cabanayna waxa weeye wasaaradana boqolkiiba boqol ayaan salaamayna ku mahadsantahay beedkan halay wali la kala sidoo kalena hawlwadeennada goobahan ee wasaaraddu u xil saartay ayaa iyagana waxaadalooda ka mid ahaa magaalada Ceerigaabo gaar ahaan goobta xaafadda Soomaal baa la yiraahdaa anigu waxaan ahay supervisorkii teamkan halka ka qabadi dadku waxa uu helayeen in la diiwaan geliyo waxa la yiraahdaa October waxaanu kaga jirnaa EUD sideedaad si fiican ayaa boqolkiiba 85 dadku rasido u bixinayaan guryaha qaar waa laga yaramqay yahay ilaa boqolkiiba 10 meelaha iyagoo xiran baan tignaa fariin baan dib ugu dhignaa hawshu si fiican bay u socotaa teamka iyagoo ah ka kooban 5 qof waxaan u gudbaynaa ardaa oo kamid ah deegaanka hoos yimaada degmada Ceerigaabo dabeetana waxaan aadaynaa xulurgaal oo iyana kamid ah inta nolol aastay inaan ka soo shaqeyn